hadday u qaateen inay xigta meesha u yihiin oo ay dhaxal tahay war maanaan dhiman waanu nool waanu soo jeednaa waan joognaa baan leenahay hadday u qaateen inaanu seexanayna ilmaaday reer mahurudna waanu soo jeednaa waxaanu u arkaynaa nin waalan iyo nin malagii gale u nugiyey dulmi baa ka dhacay fool xun xasuuq baa ka dhacay xukun gardarro ah oo xasuuq ah ayaa halkaa ka dhacay meesha haddaan wax laga qaban oo laga joojin xukunka aan laga joojin waxa ka dhacay saxbad waa la isku dili wallaahi wax ka daran baa iman ninka gardaran waxa laga qabto intaa la isdirin ee la fayow yahay in xabadi ka dhicin in cidna lagu dirin hana la soo eego haddaan dulmigaan wax laga qaban wixii xigaa wuxuu noqonayaa khasaare waxaanu diyaar u nahay dawladda inay wax ka qabato hawshaa haddii ay wax ka qaban weydo oo wallaahi laysugu iman waayo oo bilaahi laysugu iman waayo oo wax laystusan waayo inta ka dhacdaa ay taariikhda geli 90 jir baan ahay intaa dalkaan joogay nin keliyo beer laga iibiyey baa yaa la leeyahay isagaa dhulkaane dawladdu ha soo baxdo dad la dhaariyey oo daacad sheegaya oo ummadda haddii ilaahay yidhaahdo dhexgelaya ha loo soo diro 30 sannadood ee dalka lagu jiray ba fadhiyey ee barkada laga qoday ee jiingadooyin laga dhisay ee habeen meel uga kicin dadka xukuumad dadka la siiyey dadkaasi amba maxkamad ha ahaato amba madax kale ha ahaato dadkaasi dadka kicinaya waxayay ka mid yihiin ayaanu leenahay annagu ee isku dilaya dadkaasi way isku dileen xukumay ee dadka deegaanka ah barkadaha ka qotay ee waddanka u dhashay ee u soo horreeyey ka xukumay maxkamadda ka xukuntay may talina way isku dishay waxaanu leenahay ka noqoto madaxda dawladdana waxaanu ogeysiinaynaa meesha haddaan wax laga qaban oo laga joojin xukunka aan laga joojin waxa ka dhacay saxbad waa la isku dili wallaahi wax ka daran baa iman ha la joojiyaan leanu ha laga joojiyo Soomaaliland oo dhan baan horta kolka hore salaamayna salaam baan u diraynaa dawladda cusubna salaam baan u diraynaa meesha aanu joognay masallaha dadka yaale deegaanka ku yahay awowyaashood cimri ilaa awowyaashood sheekh isaaq intii ka dambaysay bay yaaleen raggii deegaankii intaa la yaalay ragga haystee yaalay rag ku dul xukumay cid kala siinaya waa maxrag aan waxba garanayn waxaanu leenahay ku garan maysaa sidaasay tahay waa 10 kiiloomitir oo isku weera la leeyahay oo deedan degan yahu weligii yaalay waa laga qaaday cid kala siinaya waxba ka socon maayaan been bay xukumeen dil bay xukumeen xumaan bay xukumeen soo dadka isku dilayaan dawlad baabiis bay ka mid yihiin dadka waxa sameeyay wax la qaadanaya maaha anaguna yeeli mayno cidina deegaana yeeli maayo deegaanka isku mid buu ka yahay waxaan sharci ahayna ma doonayno cid hala dulmina malihin dulmina qaadan mayno ilaa awowyada ayaanu weligay naalay meesha 3 awow baanu naalay sheekh isaaq intii ka soo dhan baanu naalay ninka intaa la yeelay ninka maanta le cid baan siinay u xukumaya wuu iska kacay waxba ma xukumi karo madax gaabnimo wax ku xukumaya waxaanu aragoonu ogeyn buu xukumaya waxaanu ay dawladdu sida fasax ah loo soo maro hana la soo eego xaqiiqada ha la taabto cid sheeganaysa loo xukumaya bal waxay leedahay dawladda iyo xukuumadda ha tusto anana aanu la ogaano ninka gardaran waxa laga qabto intaa la isdirin ee la fayow yahay in xabadi ka dhicin in cidna lagu dirin hana la soo eego dawladdu ciidan ha keento ciidanka madaxdu ciidan la soo raaciso ha la soo arko marka la soo arkay wax garanay waxaanay waxba ka ogeyn haddii qaflad wax lagu xukumayo wax la isku dilayay ha la joojiyaan leeno ha laga noqdo hana la soo eego marka la soo eego in la arko ninka ayaa si sharci wax loo xukumaayay waxaan xukumaan sharci ahayn oo mala awaala oo nima waxba galeen xukumay wax la yeelayo ma deegaanka jira wuu ka dhimanayaa hana la ogaado oo sida la yeelan leenahay odayaashaydu go'aankay waxa weeyaan annaga ugu nabad jecel dawladana annaga jecel deegaankana annaga jecel dadkan cidna xumaan iyo colaadu ma hayno ma doonayno waxaanu leenahay gardarradu ma wanaagsana
ilaahay wuu nacay gardarrada ninkan samay gardarrada ilaahay wuu nacay ma ogola ilaahay in la isdulmiyo aniguna dulmi dooni mayno waxaanu leeyahay sharci baa wax lagu xukumaaye hanala eego marka nala eego ee xaqiiqada la taabto arrinkeeda annaga wax ka ogi hanala galo waxaan ahay caaqil baaruud yuusuf jaamac 90 jir baan ahay intaa dalkaan joogay waxaan idiin sheegayaa dadku ninkan wax sheeganaya ee ummadda raraya iyo dadkan la kaabinaya waa nin beela xaabaala ah oo laga iibiyey ummadda dhulka taalla unbuu la mid yahay wax dheeraaduu ku leeyahay ma jiro masalaha waa la degan yahay reeraa degan baraag baa laga qoday jiingadaa laga dhisay xoolaa ku xeraysan kolla waa la baabiiyo cagtaa la mariyey dawladdu dadka dee malaha raggan wax xukumaya lacagunbuu yaqaana ummadda ilaahay ma yaqaano malaha masxaladda iyo sida lama garanayo waxaanu leenahay arrinkaa dib ha looga noqdo dalka ha la soo eego ninka halkan loo xukumaya halkuu degan yahay iyo dadku la siman yahay ee uu la mid yahay ha la arko wixii aan waxaa ahayn sida niminka lagu wada xabad baa ka dhici waa la istili deegaankaas iyo waxaasina haddii ilaahay ka dhigo waa la wada coloobi dhulka waxa wada degan dad sacad muuse iyo haddii ilaahay ka dhigo deegaana ayaa degan nin keliyo beer laga iibiyey yaa la leeyahay isagaa dhulkaa leh dawladdu ha soo baxdo dad la dhaariyey oo daacad sheegaya oo ummadda haddii ilaahay yidhaahdo dhexgelaya ha loo soo diro waxaan ahayn waa la isku dilaya arrimadaa dib laga dhulka miisaankaa leh ayaa la leeyahay waxa loo xukumay hal nin dhowr iyo 10 reerna way yaalaan xukunkaas waa xukun jawrahoo sharci darro ah cadaalad ma aha sabab ninkaasi loogu xukumo masalaha iyo dhulka reer yaalaan oo loogu xukumo ma garanayno dhulkaasi binaa ka dhisan barkadaa ka samaysan reeraa yaala xoolihii baa ku oodan waxaanu ka digaynaa oo aanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha jananka ciidamada barasaabka gobolka Maroodijeex waxaanu u sheegaynaa in cid kasta ay khusaysaba in meesha cadaalad darro ay ka dhacday xukun sharci darro ka dhacay ummadii ilaahay meesha dhigay taalay in sharci darro lagu rarayo in mar horena fulin lagu soo saaray ila barkadaha wax la yeelay imikana xukun qaldan oo ka dhacay waxaan leenahay nabadgelyadu waa qaali nabadgelyada in la ilaaliyo muhiima cida nabadgelyo darrada keenaysa waxa ka mid ah maxkamadda ay kowka waayo 10 kiiloomitir bay u xugtay nin aan shaqaba ku lahayn beertaasi waxay lama tuun beeraha ay la xariimka tahay la siman xariimka ay kuwaas leeyihiin bay leedahay wixii kale waa sharci darro waxaanu xukuumadda cusub u sheegaynaa qaladka meesha ka dhacay hana lala soo eego waxna laga qabto waxaanu ka hadlaynaa xukun cadaalad darro ah oo ka yimid maxkamadaha qaranka mid ka mid ah dhulkaanu joognaa waa dhul aad iyo aad u ballaaran waa dhul isku weer ahaan ugu yaraan 10 kiiloomitir dhan walba u noqonaya waxaanu leenahay walaalayaal dib ha loo eego arrinkaa xukun ee ka soo baxay dhulkaasi oo 10 reer degan yihiin oonu da'daa ku leekaanay oo dhulkii aanu deganayna oo dhulkii aanu ku dhalannaya nin beer laga iibiyey oo isaga laftiisu ehelka uunihi inuu aayar qaato oo cadaalad darro ku qaato yeeli mayno macquulla maaha nabadgelyaynu ku noolahay nabadgelyada ayaynu wax ku nahay xukuumadda noocaasina nabadgelyada dhaawac bay ku yihiin arrinkaasi dib ha loo eego halkan aanu joogno waa masalihii dulmi baa ka dhacay fool xun xasuuq baa ka dhacay xukun gardarro ah oo xasuuq ah ayaa halkaa ka dhacay oo la og yahay ummad badan baa og ummadda lagu tuntay cadaalad darrada loogu tuntay fulin waxaa soo baxday sharci darro ah oo qof ku soo baxday qoys oo 8 kale loo baabi'iyey dumarkii baa lagu laayay habeen baa la galay dumarkii baa lagu laayay raggii baa lagu xidhay waxa ka dhacay barkadihii baa la aasay iyadoo jiilaal tahay guryihii sadaqadaha baa la dumiyey halkaa katolkii ku abaadeen ku baabeen waxaa loo samaynayaa waa dulmi iyo gardarro ummadii halkaa degan jadka sida uu sheegay caaqilku
jad halkaa deganeed dadka maanta waxaa ku samaynaya halkaa deegaan umay lahayn wax tacabahoy ku qabseenna ma jiro wax iibahoo ka galay ma jiro wixii dhan lagu mulkiyi jiray waxba kuma laha waa dalaal iyo baadilnimo weyn halkaa la leeyahay waa laga iibiyey halkaa 5 kilomitir bay dhererka u jirtaa xaggaana 6 bay u jirtaa ballaca dhulka intaa leeg ayaa la leeyahay waa biyo shub si bareera waa biyo shub baa lagu xukumay way qoraaqii way qorayin way yaalaan ayaa halkan yaala intaasoo goor baan kula hadlay maxkamadaha oo war dulmiga wax ka qabta 2 goor baan intaan anigu ogaa la keenay horteed waa la keenay wax allaala wax cid dhageysanaysa ma jirto waxaan u soo jeedinaa dawladda maxkamadaha maanta jooga waxa ay wadaan cadaalad ma aha wax nin garsoore ku dhaqaaqana ma aha dhulkani waa deegaan beera ma aha waa deegaan aqliga bini aadanka waxa xukumaya ayaa maanta talada maxkamadda fadhiya ummadii qaran ma noqoto dawlad ma noqon karto haddaan cadaalad haysan oo nabadgelyo ma aslaaxdo dawladda ma dhidibka looba taago waxaynu u baahannahay in laga taliyo gaar ahaan dawladda cusub ee maanta dhalatay haddii dawladdaasi doonayso dalka inay dhisto magaciisa sharafka ka tagto waxna soo kordhiso cadaaladda horta hala sugo rag cadaalad waaya sidii cawshi kale yacmal haddaan cadaalad jirin nabadgelyo jiri mayso dawladnimo jiri mayso wax inoo soconaya ma jiro garsooryaama tamaansha jooga garsooraha sharciga laaluush uu qaata daayo hadiyad looma ogola casumad caadiya kama qayb galo waxba sharcigu soo dhigayo suuqa waxba kama soo iibsado si aanu dadka aanay isu baran ninka isaga wax u iibiyay in la barto lama ogola maantana lacagta lagu kala tirsanaya meesha lacagta lagu kala tirsanaya maxkamadda gudaheeda lagu tirsanaya waxaasa wadan ka taagan waxaas dalka dhaqi maayaan dawladda ka dhigi maayaan amnina dhisi maayaan horena waxba u socon maayaan inta walaalkaa ku dulmiyayo dawlad dhismaysaa ma jirto halkaa dad baa lagu dulmay waan idiin sheegay halkaasaanu nimid iyagoo geedkii la gooyey oo guryihii la dumiyey oo barkadihii la aasay oo waayeelkii iyo carruurtii sibyaantaa bacadka loo dhigay aanu halkaa anagu nimid waxaanu leenahay waar arrintan wax laga qabto wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo jananka ciidamada iyo barbara saabka iyo dawladda ilaa madaxweynaha halkaa ha laga qabto dhibaatada taagan waa magaalada dusheedii dhibta ka dhacda magaalada soo gelaysa oo dabkeedu ma yaraanayo dadkana way milmeen dhibaataa ku raagtay intaa in ka badan dul qaadan karaan lacag in lagu qaato deegaamo ummadi leedahay oo wax aad u fool xun oo laga xumaado waxaan ku soo ururinayaa anigu dawladda waxaan ka codsanaynaa halkan in loo soo diro dad xaqiiqa raadisa oo aan cidda dulmiin ee waxaan wuxuu yahay eega oo laba waxa ka soo kala baxay xukun oo islahayn nin baa soo wada saaray wuxuu soo saaray 47 hektar buu markii hore la soo saaray haddana 67 buu soo saaray inta kalena waa biyo shub buu yidhi laba shahaaday meeshaasi leedahay mid waxay ku shahaado ku taariikhaysan tahay taariikhda hore 47 hektar talabaadna waxa ku calaamadsan tahay 67 wasaarad baa soo wada saartay oo tabeeraha ah biyo shubku waxay soo saareen oo haynaa waa 100 talaabo waxana weeye marka la isku daro 10 kun dhulku 10 kun talaabo 100 talaabo iyo 10 kun intee isu jiraan waxa wada ka socda waxa laga qabtaa leeyahay deegaankan masalluhu wuxuu la mid yahay deegaanada kale masallaha ee bari naga xiga say dadku leeyihiin bay kuwana u leeyihiin ayay u leeyihiin qaybtan masallaha u leeyihiin waxa ka dhacay sidii ragga hore oo sheegay meesha waxa ka dhacday fooda ka dhacday fool xun dadkii yaalay ninka meesha nin qoro xukun lagu soo saaro la yiraahdo Ibrahim Omar waa dadkii laba qarni deganaa weeye aabihii Omar Cabdi Buhada waa raggii aasay weeyaan deegaankan garibsadaas aasay weeyay maslahaba waxa ka dhaxlay inankiisii kale
inankiisa imika afar goor bay isbedeleen maamulkooda arrinkii caynka ahaa ayaa deedna nin warqad la yimid uu yidhi anaa laga xukumay gurigaaga iyo masallaha oo dhan iyo intaa talaba anaa laga xukumay waa arrin fool xun cadaalad darraa weeye dhib baa ku gaadho barkadiis baa lagu dubiyo gurigiis baa lagu dubiyey isaga maahee markaasaa in alle intii aagoo dhanna ayaa lagu wadaray arrin fool xun weeye oo aan la qaadan karin ninka waxaa loo samaynayaa beer buu ku leeyahay dooxa xaabaale ee hoose ayuu ku leeyahay iib ku soo gashay ma duudsiyeyno beertiisu waxay beeraha kale leedahay bay leedahay waa nin degaanka oo xuquuqda ay degaanku leeyihiin buu leedahay laakiin 5 kilomitir iyo 5 kilomitir ayaa laga xukumayaa waa bashirto waanu ognahay lacag baa la soo geliyoo la yidhi dhulkaynu aqoon magacaan ku qaadanaynaa in lacage ninkaa isagii ilaa dabaduu kaga soo qaadi jiray dhul baan idiin hayaa dawlad iyo maxkamada noocaa u adeegaana wuu helay oo dadka isku dilaya ilaahay baana kala badbaadiyee maalin horaa khasaare dhici lahaa ilaahay baanu mahadnaqaynaa khasaare dil aan halkaa ka badbaadiyey waxaanu leenahay dawladda cusub falkaa hore ciddii lahayd annagoo iminka waxba canaananayn baa lahayd fulinteeda dawladdaa cusub waxaanu ku wargelinaynaa meeshaa inuu ka dhacay dulmi foolxume oo laba qaataane oon laga tegayn haddaynu nahay dadka degaanka waa dadkii ilaahay ku abuuray cid nooga tagta iyo cid noogu timaado lala degta mooyaane cid alle cid looga tegi karayaa ma jirto haddii isku day damba ka dhaco dil baa ka dhacaya meesha waxaanu xukuumadda u sheegaynaa sharafteeda cusub badha saabkeeda iyo wasiirkeeda amniga jarankeeda cusub intuu cusubta in dhulkaan nala eegtaan oo nala aragtaan oo waxaanu sheegaynaa inuu xalaal iyo inuu xaaraan yahay iyo waxa la xukumay inuu xaaraan tahay inay xalaal tahay aad nala soo aragtaan waa idinku soo dhowaynaynaa waa nala eegaysaan waxaanu leenahay haddaan dulmigaan wax laga qaban wixii xigaa wuxuu noqonayaa khasaare ma nin baa qaadanaya gurigaaga nin ha kugu dul sharciyaysto oo ha loogu xukumo dul qof qaadanaya ma jiro waa arrin lama qaataan wey deegaankoo dhamme arrintaa waa iska raacsan yahay waa arrin aad looga kacsan yahay waxaa ka wada hadlay cuqaashii nabadgelyada ka shaqaynaysay waxaanu leenahay dad fidmo abuure ma nihine yaana la kallifin inaanu jawaab xun ka bixinno cidda waxaa wadaana way isgaranaysaa cidda waxaa wadaa way isgaranaysaa waxaan leenahay laga daayo dadku walaalnimo iyo wanaag bay ayay wax ku wada leeyihiin laakiin aanu isdul fuullo waxba lagu wada yeelan maayo xaaladdaa waanu ka degaynaa aad baanu ka degaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa ka degaynaa waa ku celcelinaynaa waxaanu leenahay xaaladdaa nala eega xukuumaddaa cusubey bal inaanu arrin xalaal ahayn iyo inuu arrin baadil yahay 88 markii laga qaxay barkaduu dadkii ay uga dhisnaayeen ee sidii u deganaa in maanta la yiraahdo nin baa intuu xafiis kale waraaq loo soo xukumay horta wax lala yaabo waxaanu leenahay ninka odayga ee hawsha wada iyo dadka ka dambeeya wadaba hadday u qaateen inay xigta meesha u yihiin oo ay dhaxal tahay war maanaan dhiman waanu nool waan soo jeednaa waan joognaa baan leenahay hadday u qaateen inaanu seexanayna ilmaada reer Mahurudna waanu soo jeednaa ninna barkadiisii iyo dhulkiisii iyo halkuu deganaa maanta intuu nin xafiis galo uu waraaqa ku soo qaado ku mulkiimi maayo kuna qaadan maayo taa horta ku biicabaan leeyahay waxa weeyaan ilmaada reer ninka odayga waxba laga iibiyey bilaaadmiga deelan dhulkoo dhan lama siino lagama wada iibine nin baa wax ka iibiyey ciddii wax ka iibisay way noo sheegay beertiisii maanta cid kuma haysato halkay ku taalana waa la yaqaanaa wixii laga iibiyeyna waa la yaqaanaa wixii uu wax kale ku doonaa inaad arwa garta riin foolxumo waxaanu leenahay cidda u xigtadaa dadka u xigtadaa waryaan qalad lagula soconin qaladkaasi hadduu sii socdo in badan buu hadalkaasi dhagahayaga ku soo noqnoqonayey in badan buu dhagahayaga ku soo noqnoqonayey sokeeyaanu nahay arrintaa aad iyo aad baanu uga dhowrsanaynay war laakiin intii lagaga xishoonayey iyo intii lagu dhaafayeyba way soo dhaaftay waxaanu leenahay xukuumaddaa cusub kow bara saabka jumhuuriyadda somalilan ee caasimadda hargeysa taliyaha ciidanka biliiska hadday tahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha inta ka shaqaysa amniga iyo nabadgelyada qaranka u xil saaran war meeshaa foolxumaa ka soo socota tu aan loo dulqaadanayn baa ka soo socota ninka barkadiisu 30 sannadood iyo in ka badan ay dhisnayd ee cagaf nin yar ula imanayo maanta cagaf gelinayo duminayo war wixii ku xigaa waa dil arrinkaa ninka diidaa waxaanu u arkaynaa
nin waalan iyo nin malagii gale uu nugiyey waxaan dadka u sheegayaa een dawladda u sheegayaa ee shicibweynaha Soomaaliland u sheegayaa ee cidda beeraleyda u sheegayaa ee cidda deegaanahoo dhan u sheegaya ninka odayga ee godka aakhire maanta ku jira ee maanta beer yaroo halkan ku taala laalaadka laga iibiyey ee 3 beerood oo kale oo ilmaaderadii leeyihiin hareeraha kaga jiraan ee 3diiba afkooye ee yimi masallihii yimi ee xaafadihii lahaa guryaha ee deegaanada intaasoo guri oo ku xeeran oo barkada ku leh oo deegaan ku ah ragga aayar intoo la yidhi garsoor baa tihiin maxkamadeed loo tegayo ee adduunka lagu baayacayo aroortana la soo saarayo xukunkii shalayto ka baac weyn waxaanu diyaar u nahay dawladda inay wax ka qabato hawshaa haddii ay wax ka qaban weydo oo wallaahi laysugu iman waayo oo bilaahi laysugu iman waayo oo wax laystusan waayo inta ka dhacda ay taariikhda geli waxa weeyaan anigu waxaan ahay gudoomiyaha deegaankan Garabiseed aad iyo aad baan anigu meesha u kala garanayaa waxa weeyaan beerta la xukumay ee la yidhi waxa loo xukumay 6 kiiloomitir iyo in ka badan beeraha ay jaarka yihiin bay la xeerta haddii sidaa imika la sheegayo dawladdaasi ay soo xukuntay oo xukunkaa la soo siiyey halkan dadka jooga taa kuma qanacsana sababtoo ah waa laga gardaran yahay imikana gardaradii baa lagu sii socdaa dadka halkan jooga ma qaadanayaan halkaa xukuumaddu xukuumadda cusub hadday wax ka qaban weydo arrintaa oo arrintaa cid meesha ay u soo diri weydo eegta hadday gardaran yihiinna annagoo deegaankiiba la qabanayna haddii laga gardaran yahayna hal la qabto cidda soo xukuntay waka